بسم الله الرحمن الرحيم maantay waxay nasiib wanaag noo ahayd inuu nagala soo qayb galo prime ministerka guddiga shirkiisii muxuu ahaa waxay ku kordhisay guddiga ka soo qaybgalka prime ministerka muxuu ahaa talo iyo dhiirigelin iyo muxuu ahaa taakuleen intaba muxuu ahaa maantay ajendaha aan ka hadalno waxay ahayd inaan muxuu ahaa prime ministerka usoo bandhigno sidaan isku qaabeynay iyo muxuu ahaa meesha aan wax ku wadno sidoo kale waxaan looga hadlay meeshii guddiga howlihiisa ay ka geli lahayd muxuu ahaa tubaha guddiga waxaa la isla qaatay in howlaha guddiga ay ka mid noqoto tubaha shaqooyinkeeda 2000 iyo muxuu ahaa 19 sanadkan guddiga waxqabadkiisa ayaa la isku soo hadal qaaday guddiga inta badan marka haddaan idin dul maro muxuu ahaa waxaa lagu tala gaaray oo in marka u horeyso sidii guddiga mandatekiisu ahaaba in la xogti la aruuriyo oo dhulka dowladda meesha uu ku yaalo iyo deegaanka uu ku yaalo muxuu ahaa la tiro koobo dhulka noociisa kadib haddana la khaanadeeyo muxuu ahaa xogtaas oo la ogaado muxuu ahaa khaanado badan la kala geliyo si khaanad walbaba markaas siyaasad iyo istaraatiijiyo dhulkaas dowladda kuwa maqan muxuu ahaa kusoo noqdaan waxaa la isla gaaray in wasaarad walba loo soo bandhigo inay ugu yaraan muxuu ahaa 3 hanti aan muxuu ahaa cidna haysan inay gacanta ku soo celiyaan iyo ugu yaraan 2 la haysto inay soo celiyaan kana shaqaysiiyaan marka arrimahaas waxaan kusoo bandhigi doonaa shirarka soo socda ee golaha wasiirada sida wareegtada prime ministerka baa ka arkaysay waa waddanka oo dhan markaan leenahayna gobollada waqooyi way ku jiraan hantida waddanka meel kasto ay ku taalo ayaan anaga mas-uulkana kama nihin keliya xamar dowladduna xamar keliya kama shaqayso marka waa waddanka oo idil warkaa hore noo soo gaaray waa war iska maran habaabina oo la rabay in yani mataqaanaa inta badan dadka hantida haysta ayaa suuqa geliyay xaar keliya laga rabaa iyo wax noocaas